maxkamadda sare ee Somaliland ayaa magaalada Burco ka bilowday dhageysiga dacwadaha madaniga ah. Ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Qaryaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed waxaana uu ka warbixiyay dacwadaha ay dhageysteen isagoona shaaciyay gudoomiyuhu in ay bilaabeen dhageysiga dacwadaha madaniga ah ee gobolka Togdheer. waxaan maanta halkan doonayaa inaan briefing kooban ka sameeyno maxkamaddii sare oo ay la socdaan xeeraalyaal ka tirsan iyo garyaqaanadii iyagana dacwadaha geliyay qaybo ka mid ah ayaa waxaan u soo rarnay gobolada bariga khaasatan nimanka waxaanu shaqadii ka bilownay gobolka Togdheer. waxaa hawshan maxay ahaydeen ka qayb qaadanaya in ka badan 30 qof dhowr iyo 30 qof oo isugu jira garsoorayaal iyo kaaliyayaal iyo howlwadeeno kale oo ka soo guuray caasimadda oo soo guuray gobolada bari. waxaananu shaqo ka qaban doonaa hadii la yiraahdo Togdheer laga bilaabo Saaxil, Togdheer, Sanaag, Sool, goboladaas oo dhan ay maxkamadda sare dacwado ka galaysaa. waxa kale oo soo eegaysaa dacwado hore loo galay wixii la isku haystay hanti tahay iyo haday dhul tahay iyo wax kale yihiin. marka meelo badan baan mari doonaa aanu booqanaynaa. waxa kale oo booqan doonaa hadii la yiraahdo xabsiyada iyo saldhigyada intii aanu ka gaadhno hadii la yiraahdo dacwado badan baa lagu dhageysanaya oo kuwa la soo eegayo iyo kuwa la dhageysan doono aan ka yarayn 200 iyo wax ka sareeya dacwadaha hore loo galay ee la eegay iyo kuwa la gali doono iyo kuwa ciqaabta ay ka wada qayb qaadanayaan maxkamadda sare iyo xeeraalyaashu xabiiska xeeraanta haday tahay tan gobolka iyo haday tahay guud. muhiimsan aanu soo rarnay maxkamadda sare waxa weeyaan in cadaaladii dadka loo dhaweeyo waayo dadkanu dan yar bay u badan yihiin hargeysa ma iman karaan muddo dheer ma sugi karaan. marka ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda sare ee Somaliland Saciid Axmed ayaa sidoo kale sheegay in ay ka bilaabeen gobolka Togdheer dhageysiga dacwadaha madaniga ah ee gobolka Togdheer. iyo xeer ilaalinta maxkamadda sare iyo xeer ilaalinta guud ee kormeerka ku maraya gobolada bari oo runtii gudoomiyuhu aad kaga xilqaamay in cadaaladda qof walba godkiisa loogu tago halka uu ku xiran yahay loogu tago ama madani ha ahaato ama ciqaab. dhankooda iyaguna waxaa hadalada iska daba qaatay gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Togdheer iyo xeer ilaaliyaha gobolka Togdheer iyagoona ugu baaqay bulshada gobolka Togdheer inay ka faa'iideystaan muddada kooban ay gobolka joogaan maxkamadda sare ee Somaliland. danaynay inay noo yimaadaan gudoomiyaha maxkamadda sare waliba uu noo yimaado oo indhihiisa uu ku arko maxkamadaha gobolka Togdheer oo maxkamadda racfaanku matalaso oo anagu aan isaga mas'uul uga nahay 11 maxkamadood oo ku yaala gobolkan aan mas'uul isaga uga nahay inuu isagu indhihiisa ku arko socota dacwadihii hargeysa loo qaban lahaa halkan lagu qaaday taasuna ay dadkan shacabka ay dhibaatada ka fududeynaysa iyo kharashka iyo hawsha. maxkamadda sare ee dastuuriga ee Somaliland ayaa gobolka Togdheer si rasmi ah uga bilowday dhageysiga dacwadaha madaniga ah ee gobolka Togdheer. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, telefishinka caalamiga ee Ariel, magaalada Burco.